asalaamu calaykum waan ku salaamay daawada meel walbo aad joogtid kusoo dhawow qaybta xigtaa ee sheekadii ku saabsaneed xaaskayga jinni bay ka ahaatay. qaybtaani waa qayb xasaasi ah, waxaa tarjuma saaxiibkii cabdiraxmaan xasan anteeno. walaasheena xamdo mataan ayaana qaybta iskaduburididda iyo muuqaalada gacan weyn ka geysanaysa. qaybtii hore waxay noo joogtay meel xasaasi ah, qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa amal markaasi waxa ay soo siibtay jijin gacanta ugu xidhnayd, taasi oo ay ku qorneyd xarfo aanan la fahmi karaynin. kadibna waxay iga codsatay inaan gacanteyda bidix aan ku xirto, ayadana mid la mid ah jijintaasi ayay gacanta midig ku xirnayd. markaas ayay ii soo dhowaatay ilaa aan hal taaka aan isku jirsanno, waxaana iga dalbatay in aan fiiriyo indhaheeda quruxda badnaa, kuwaas oo aanan wax ka qurux badan weligay aanan arag. markaas ayaan indhaheeda fiiriyay, waxaana gudagelay jawi aamusnaan ah xilli indhaheenna ay bilaabeen inay si gaar ah u sheekaystaan. waxaana ay markaasi igu tiri waxaa la gaaray xilligii aan isku xirmi lahayn, isna guursan lahayn. waxaana kaa doonayaa inaad iga daba tiraahdo hadal walba oo aan idhaahdo si nikaaxeenna uu u dhaco. waxaana hadalkii uu ku bilowday sidan: anigu waxaan ahay amal binti naasig bintul jinni. anigu waxaan ahay xasan binu sufiya binul insi. ayadoo dayaxa markhaati yahay ruuxdayda, khiyaaligayga iyo jirkaygaba. anigoo og weynaanta macnaha guurkan. anigoo og weynaanta macnaha guurkan waxaan kula ballamayaa xasan binul insi. waxaan kula ballamayaa amal bintul jinni inaan u noqdo ruuxdii jirkiisa, inaan u noqdo ruuxdii jirkeeda iyo holaca dabkiisa iyo holaca dabkeeda, bilow ilaa dhammaad, bilow ilaa dhammaad. waxaan u ifinayaa nolosha kolka uu soo dhowaado habeenkeeda. waxaan har u noqonayaa kolka ay qorraxda soo baxdo. waxaan ka ilaalinayaa murugta, waxaana ku dadaalayaa farxaddeeda, anigoo jeclaan doona jacayl aan dhammaan doonin. waxaan u hibaynayaa naftayda mar kasta oo ay doonto iyo siday u doontaba intaan noolahay. waxaan saarayaa gacantayda midig gacantaada bidix. tanina waa ballankayga aan marnaba ka bixi doonin, wuxuuna ballankan jiri doonaa intaan adduunkan guudkiisa ku noolahay. markii aan intaasi isdhaafsannay ayay igu tiri iyadoo indhaheeda farxad darteed la ilmeynaysa: saacan laga bilaabo aniga adiga ayaa ileh, adigana aniga ayaa ku leh. ee xorey naftaada, habna isii si hilowga iyo hamuunka aan kuu qabo oo iiga go'o, shumiskeena koowaadna aan u wadaagno. markii ay sidaasi i tiri ayaan amal habsiye iskuna duubay, aniga oo timaheeda iyo qoorteeda carabsanaya. markaas ayaana bishimahaygii kuweedii ay u dhowaadeen, aniga oo dhunkashadii ugu horraysa afka ka dhunkaday, taasi oo i dareensiisay sida in ruuxdayda hawada sare ay sabaynayso. markii aan dhunkashadii ka bogtay ayaan indhihii kala furay, misna halkii aan joognay maba joogno, waxaana ku sugannahay goob aad u qurux badan, taasi oo aan xitaa khiyaali ku arkin. markaas ayaa amal hadalkii qaadata oo i tiri: haatan waxaan joognaa beertayda ii gaarka ahayd. anigu waxaa la yaab igu noqday muuqaalka bilicdasan iyo sidoo kale geedaha badan ee beerta ka baxaya. waxaana gudagalay inaan indhaha la sii raaco aniga oo quruxdaasi dabiiciga ah daawanaya. markaas ayay amal waxay igu tiri: kaalay xabiibi, si aan kuu tusiyo waxaadan weligaa aadan arkin. kadibna gacantii ayay iga qabatay, waa ay ila socotay halka aan aniga aad ula yaabanaa muuqaalka bilicdasan ee beerta. kadib waxay iga dalbatay inaan indhaha isku qabto. markii ay fur i tiraahdana aan furo. sidii ayaan yeelay oo indhihii ayaan isku qabtay. xoogaa kadib ayay tiri: kala furo indhaha. markaas ayaan indhihii kala furay, waxaana horteeda ahaatay bad yar oo aad u qurux badan, taasoo aad moodo barkad biyo in muddo ah ka shaqaysiinaysay oo beerta dhexdeeda la dhigay. arrinta cajiibka waxay ahayd in baddaasi yar uumibax ay samaynaysay, islamarkaana isku bedelaya daruur. kadibna isla baddaasi korkeeda uu ka da-aya roob, waxaana arrintaasi oo dhan ay ku dhacayeen daqiiqada yar. sidoo kalena baddaasi yar waxay lahayd 7 il oo biyaheeda ay ka burqadaan. markii aan muuqaalkaasi arkay ayaan iscelin waayey, waxaana isku dayay inaan biyihii baddii yarayd ahayd aan isku tuuro. hase yeeshee amal ayaa iga qabatay iyada oo leh: miyaad waalata xasan, maxaad samaynaysaa? naftaada ayaad gubaysaa haddii aad halkan u dhowaatid. balse aniga hadalkii amal dheg jalaq uma aanan siinine, waayo macquul ilama ahayn in biyaha baddaasi ay wax gubaan. markaas ayaan si aan hadalkeedii u hubiyo gacantaydii bidix baddii yareed aan geliyey. laakiin xanuun ayaan dareemay, anigoo aad u qayliyey ayaana gacantii kala soo baxay.
waxaana gudagalay in aan xanuunkaasi dartiis aan la rafto. Amal ayaa markaasi qaab aanan fiicnayn iisoo fiirisay sida in ay leedahay soo kaagama digin, balse waa ii naxariisatay, xanuunkana iguma aysan fiirsan. Markaas ayay ii waday, waxaana ii geysay dhinacii kale ee badda yarayd. waxay iga dalbatay inaan biyaha dhinaceeda gacanta aan geliyo, balse waan cabsaday kamana aanan yeelin. Markaas ayay igu tiri, shaki yuusan ku dilin xasanow, bal gacantaada fiiri sida ay isku badashay. haddii aad doonayso in degdeg ay kuugu badbaado kuguna caafimaado biyahan badda ah, gacanta geli. hase yeeshee kama aanan yeelin. Markaas ayaana Amal anigii oo dhammaa ay baddii i gelisay, ilana quustay ilaa aan moolka badda hoose aan ka soo taabtay. kadibna baddii yarada ahayd korkeedii ayaan imaaday xilli biyaha badda ee aaday u qaboobayeen, balse markii badda aan ka soo baxay ayaan dareemay gacanteydii oo sidoodii hore ku soo noqotay, wax xanuun ahna uusan ka jirin. Amal ayaa markaasi igu tiri, biyaha badda waxay leeyihiin 7 ilood oo 3 ka mid ah biyahooda ay aad u kulul yihiin sidii foolkaanaha oo kale, halka 4 kalena ay qabow yihiin. marka haddii aad dhinaca foolkaanaha aad ka soo gasho waad gubanaysaa, balse dhinaca qabow waa caadi. waxaana anigii aan hadalkii qaatay aan ku iri aniga oo aad u yaaban, annaga haatan ma dhulka ayaan joognaa mise meero kale? waxay igu jawaabtay, dhulka ayaan joognaa. waxaan markaasi aan weydiiyey su'aal kale oo ahayd, waxaan ula jeedaa ma adduunkiina ayaan joognaa mase adduunkeenna? waxaana ay markaasi ii xaqiijisay in adduunkeedii aan joogno, oo waxay igu tiri, adduunkeenna ayaan joognaa xasanow, mana joogno meero kale ee dhulka ayaanu joognaa. haddiise aad i weydiiso halka aan ka joogno, waxaan ka joognaa halkii ay ka kulmaan adduunkeenna iyo adduunkiina. markii ay sidaasi ay tiri ayay bilowday inay biyihii badda igula ciyaarto. cabaar kadibna biyihii ayay ka baxday iyada oo dharkii ay wadatay wada qoyan yihiin, jirkeedana uu ku dhegan yahay. markaas ayay cawskii biyaha badda u dhowaa ay isku tuurtay. anigana waxaa aad ii soo jiitay muuqaalka ay indhahayga markaasi arkayeen ee biyihii badda ahaa, waana ka soo baxay anigoo agteeda seexday. waxaana weydiiyey sheekada ka dambaysa geetimireedkii xabsiga Casqalaan ku yaalay, kaas oo aan iyada isku barannay. waxay igu tiri, goobtan beerta aad u jeedo waxaan bartay aniga oo aad u yar, waxaana ii noqotay goob sir ah oo aanan qofna la wadaagin. hase yeeshee maalintii dambe ayaan aniga oo yar oo isleh ku laaba adduunkiina, waxaan si kama ah aan uga dhumay jidkii aan mari jiray, kaasi oo adduunkeenna igu hagayay. waxaana soo qaaday jid qallooc ah oo nooc kala ahaa. maadaama beertan ay labadeenna adduun ee u dhaxayso, waxaan soo dhexgalay adduunkeenna, waxaana arkay dad nooc kale ah. anigana waqtigaasi wax xog ah kama aanan haysan adduunkeenna. waxaan isku dayi jiray in aan dadka aan la hadlo, balse qof ii jawaabo waan waaye. sidoo kalena waxaan ka quustay inaan adduunkeenna aan dib aan ugu soo laabto, maadaama aan aqoon waaye halka uu iga jiro. aniga markaas aad ayaan u yaraa, mana fahamsanayn adduunkeenna wax ku saabsan. maalintii dambe ayaan waxaan arkay geetimireed xabsiga Casqalaan ku yaalay hoostiisa ayaan iska fariistay. waxaan gudagalay inaan halkii aan isaga ciyaaro habeenkii, markii la gaarana guryahan dadka iskala geli jiray, iskana seexan jiray. waxaana aad ula yaabi jiray inaysan dadka marnaba aniga i arki jirin. dadka ima arki jirin. waxaana ku ogaaday dhowr mar oo aan la hadlay ayaan waaye wax ii jawaabo. waxaana markii hore aan u haysan jiray inay iyasayaan oo aysan ilmaha yar la hadlin. maalintii dambe aniga oo geetimireedka hoos fadhiya ayaa waxaa ii soo dhawaada qof aanan garanaynin ilaa haatan insi iyo jinni midkii uu yahayba. wuxuu ii sheegay in dadka adduunkan ku nool ay arki karin, balse ay jirta qaab aan isku kiintusi karayo. sidoo kalena wuxuu ii sheegay halka adduunkeenna uu ku yaallo iyo goobta aan ka soo lumay, isagoo ii tilmaamay. kadib aniga oo tilmaamtay ninkii ku socda ayaan dib ugu laabtay adduunkeenna, balse marnaba ma aanan iloobin geetimireedkaasi. waxaana soo booqan jiray mar walba oo aan aad ugu xiisay isaga, ilaa maalintii dambe aan adiga halkaasi kugu arkay. nasiibna aan u yeeshay inaan ku jeclaado. arrintaasi oo sabab u noqotay in qawaaniinteennii adduunkii dhammaa aan dartaa aan u burburiyo kuna guursado. Amal markii sidaasi igu tiri oo sheekadii ay dhammaysay ayay tiri, ma gaajaysan tahay haatan oo gaajo miyaad dareemaysaa? waxaan markaasi aan u sheegay in weliba gaajo daran ay hayso. kadibna waxay ii sheegtay in cunto macaan ay siin doonto. waan israacnay annagoo xoogaa yar soconnay. waxaan dhex galnay beer kale oo aad u qurux badan, kana baxaan noocyada kala duwan ee macaanka ama miraha. waxaana ay bilowday in mirihii ay ii soo gurto, kadibna aniga ay siiso, ilaa markii dambe aan dhergay. markii aan dhergay ayaan dhulka isku tuuray aniga oo dibirsan,
markaas ayay amal ila soo seexatay iyada oo weliba korkayga ku seexatay xilli laabtayda ay teeda saartay. Kadibna waxay bishimaheeda u soo dhaweysay kuwayga. Waxaan damcay inaan dhunkado, hase yeeshee xoogaa yar ayay iga fogeysay xilli timaheeda ay iga xantaxantaynayeen wejiga. Kadib ayay miro gaduudan oo aad u qurux badan oo agteeda yaalla ay soo qabatay, iyadoo bishimaheeda ku soo qabatay, waxaana ay bilowday inay si tartiib tartiiba mirihii gaduudnaa ilkaheeda ugu tuujiso xilli dheecaanka ka soo baxay oo afkayga toos ugu dhacayay. Halkaasna waqti badan ayaan ku qaadanay. Halkaa haynoo joogta qaybta xigta ee xaaskayga jinni bay ka ahaatay. waxaa tarjumay saaxiibka Cabdiraxmaan Xasan Anteeno. qaybta xigta intaan ku kulmi doona anigoo Marcad waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.